aqoonsigii wuxuu kaga xidhan yahay Somaliland Soomaaliya ee Mareykan iyo Ireland iyo meel kuma xidhna hadiiba aad garwadeen ka noqoto qaranka ama madaxweyne noqoto ma aqoonsan lahayd Somaliland horta waxaan ku sheegayaa reer Soomaaliland oo u sheegayaa wada hadalka Somaliland iyo Soomaaliya ninka bilaabay waa aniga waxaana marqaati iga xirsi iyo maxamed cabdullaahi iyo baashi waa guddigii aan hoos ahaan sir ahaan isu arki jirnay intaan la shaacin geedda anaana alifay oo odayaal baan u diray waqooyiga laba oday way ka soo noqdeen dad odayay soo arkeen laba kalaan u diray way soo noqdeen markii dambe wafdigii abaaraha halkaan markay ka dhaceen wafdigii waxa halka milyan geyn jirtay 1 milyan ma ahayn waad faanaysiin 400 kun bayd marka wafdigii waxa ku jira laba qof oo og labadii qof baa waxaan u geeyay Sheekh Shariif iyo Silaaya markaas wada hadlay waxaan ku yeeshay marka wafdi sir ah in la sameeyo wafdigii sirta ahayd baan ku jira anigu wala ogyihiin intii annagu aan wadnay meel fiican markii xukuumaddan timid malafkii meesh warqad uu markaas Silaaya soo diray oo ugu hambaliyeynayo madaxweynaha cusub iyo meeshii ay noo mareysay ayaa waxaan ku wareejinay madaxweyne xasan sheekh asaga u dhiibtay marka qolooyin kale u dhiibay waan ognahay marka inay socon weyday waxba socon weyday ragga Soomaaliland waxaan leeyahay horta aqoonsi inaan idinku aqoonsanayo laakiin mid baan idin sheegay ninka idinku dhow ee waxaad raalli ku tihiin oo ku faraxsan tihiin idin la gaari karo aniga nin kale ma aha sababtoo waxa la rabaa qofka inuu daacad ka yahay markuu wax gelayo aniga daacad baan ka ahay marka isma jiidi ma wada jiitami doono wax ay ku faraxsan yihiin أنا waxaan rabaa markaan wada hadlayno uma baahniba aniga Turkiga taga iyo inta taga uma baahnin dad raba sac yani wadankoodii oo burbursan bay waxay rabaan hotel 5 star inay afar cisho oo free ah oo lacag ay ka bixinayaan way jecel yihiin oo iska raaxaystaan ma ogta raaxadaas u taga laakiin waxa laga yaabaa inay ba u tagin inay si dhab ah isu waafaquraan oo khilaafka jira iyo meesha ka jira ay ka wada hadlaan anigu meelna ma aada haday rabaan ana Hargeysa imaanay ma ogta anigu waxaan Hargeysa imaanay anigu madaxweyne Soomaaliyeed ayaan Hargeysa imaanay war ama oday Soomaaliyeed ugu qaabila ama qof Soomaaliyeed ugu qaabila nooca rutiin ugu qaabila aeroportkaasan ka degaya odayada iyo siyaasiyiintooda marka waxaan filayaa odayadooda inay soo dhaweyn doonaan baan filayaa annaku waxaan ilaynaa wada xaajood dhab ah oo qofna dhexdhexaadinayn isu jirin waxaan hubaa muddo kooban sanad gudaheed ama 2 sano maximum inaan natiijo ku gaarayno waxay raalli ku yihiin annakuna raalli ku nahay inay soo baxayso waagi waan isla soo dhaweynay fiiri waagi waan isla soo dhaweynay meelahan iskala soo dhaweynay waxay maalintii ugu horeysay shirnay waxaan dhahnay war iskama shirayno iskama wadayno ba fiiri waxaan rabaa meeshan 2 layno parallel ma isu imaan weligood ya 2 layno parallel haddaan ku soconno ma isu imaanayaan maya waxaan 2 layno parallel kuma soconayno oo shir meeshan isaga imaanaynaan rabnaa ya meesha aan isaga gartay adiga ku haysta mudane tarsan wada hadalladaas inta badan bulshadu waxay danaysaa inay xog hesho waxyaabaha laga wada hadlayo dadku waxay aaminaan wala isku keen daraya wada hadallada waxba kama jiraan yani maxay tay qodob iyo labaad oo ka taabanaya kuwa ugu dhadhanka badan waxyaabaha laga wada hadlay maadaama sheegtay inaad ahayd mas'uulkii albaabka ama iridda ka furay in labada dhinac 25 sano kadib wada hadla meesha la isugu imaan karaan ku sheegay horta xaaladda aan ku sugannahay hadda xaaladda aan ku sugannahay oo burburka ah oo dawlad xumada ah oo musuqmaasuqa ah oo horumar la'aanta ah oo amni xumada ah aqli maaha dad nabad haysta in la dhaho kaalay oo ii imaada la dhaho aqli maaha laakiin waxaan aaminsanahay in la dhiso marka ugu horeysa tilaabooyin kalsoonida dadka soo celinaysa ayagoo sidooda annaga sida colaadda maaragtay siyaasiyiintu gelinaysa dadka cabsida ah in cabsidaas la joojiyo oo bulshadu ay isdhex gasho مثل dad fanaaniin reer Hargeysa inay inta yimaadaan fanaaniin reer Muqdisho inay xagga tagaan dhalinyaro ciyaartooy inay inta yimaadaan dhalinyaro ciyaartooy inay xagga tagaan dhaqankii in maaragtay la isdhex geliyo dadkii soo garan dadku marka kalis hays bartaanba ilaa hadda waxa jira 30 sano ku dhow baan kala maqanahay dhalinyarada 30 jirka ay baarlamaanka gasho waxa laga yaabaa inayba xiriirkeena ogeyn marka bal horta kalsooni hal abuur kalsoonidii dadan kalsooni abuurin ma wada hadli karaan si daacadan uma wada hadli karaan annagu tilaabada ugu horeysa waxa kalsoonidii baan abuuraynaa kalsoonidii markaan abuurno haddana waxaan
iska fogeynaynaa waxa aan isku khilaafsannahay waxa naga dhexeeyoo kale kama bilaabayno waan midoobaynaa iyo kala tegaynaa kama bilaabayno meel laga bilaabo maaha taas sababtoo ah waan ognahay inayna ayakuna aqbalaynin annakuna aqbalaynin marka kama bilaabayno meelahaas meelo kale waxaa jira aan mari doonno oo dadka ayna u arkaynin dhibaato u arkaynin qof kastoo Soomaali uusan dhibaato u arkaynin maaragtay waxaan dhiirigelinaynaa maaragtay ganacsatada labada dhinac inay wax isku darsadaan inay warshado wada yeeshaan mesela ganacsato halkaan ah inay maal gashadaan oo ay maalgashi xoogan ku sameeyaan Somaliland dad Somaliland inay maalgashi xoogan ku sameeyaan fiiri Europeanka dagaalkii labaad iyo dagaalkii koowaad ayaa ka sababay malaayiin baa ku dhimatay markii dambe maxay uga badbaadeen in ay dhaqaalaha isdhex gashadaan marka dhaqaalaha iyo bulshada iyo in la isdhex geliyo way marka hore oo laga sheekaysto ka bacdi baa waxaan u imaanaynaa inaan fiiri annaka problem nagu ma hayso siyaasadana waxa kamid ahayd arrimaha soo jeedin inta wada hadal waxa kamid ahayd war muddaha la isku soo celiyo wadankan sidiina ahaada oo sidiina isu maamulo oo madaxweynihiina doorta oo sidiina ahaada laakiin siyaasiyan muddo aan Soomaalinimadii ha soo noqoto soo ma garan ka bacdina muddada waan isku khilaafsanayn annagu waxaan dhahaynaa 10 sano ayakuna waxay dhahayaan 3 sano 10 sano dabadeed waa taan annagu rabnay 10 sano dabadeed dadkan markay isku jiraan aftaha waa sida Suudaan iyo South Suudaan ku kala go'day moogta iyaga xagga Somaliland 3 sano isla 3 sano ayay ku dhahayaan annagu waxaan aaminsanayn 10 sano marka aan soo nimaano waqtigaas markii la gaaro aftaha la qaado aftaha xalaal ah oo qofka rabo midnimadana uu si xor ah asagoon cabsi ku jirin uu dhihi karo midnimo rabnaa sabab dadku ula hadli karo qofka kala go'a rabana uu hadli karo si xalaal ah ka bacdina doorasho xalaal ah waxaan dhihi lahaa afti xalaal ah ha dhacdo haddii aad ku guulaysatiin go'aansatiin inaad go'diin annagu number 1 idin taageeraynaa oo aqoonsanaysaan sidaas la rabaa siyaasaddu waa sidaas yiri Czechoslovakia wadankii lagu dhihi jiray Czechoslovakia hadda waxay u kala go'een Czech Republic iyo Slovak ay u kala go'een waa sidaas waqti aftidaas ayaa la qaaday aftidaas lagu kala tagay afti ma hal qolo organize gareysatay ma hadda waxay idinku waxaad ku doodaysin afti baan qaadnay boqolkiiba intaas la dhahay anigu wariyaan iyagu waxay ku doodayeen afti waan qaadnay war afti hal dhan ahayd qofka dhahay midnimo rabnaa si xor ma u dhihi karin ma dhihi karin marka lagu tilmaami karo afti waxaan rabnaa xor ah kalsooni dadkii hal la siiyo waqti nabad ay noqoto la isku soo celiyo hal la sameeyo ka bacdi afti baa la qaada aftigaas aad ku guulaysateen number 1 calankaana idin la saarahaya laakiin aniga waa inay doorateen u sheegay xildhibaanadiina halkan idinka jooga inay doortaan waa tahay intaasi waxa ku eeg waraysigeena xiisaha badan oo runtii siyaasi aan ku faraxsanahay inaan hor fariisto waraysiga kalfurniya la furni dhinaca walba taabanayana aan la yeesho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan waa mas'uulkii aasaasay ama hindisay beertan quruxda badan aynu fadhino waa mas'uulkii liido dib u xoreeyay amaba maanta sababay inay noqoto bogcad lagu raaxaysto loo dalxiis tago qurba joogta ka timaada dibaduna ay nasasho timaado sidoo kale waa mas'uulkii iridaha u furay Al-Jazeera naanaysaha badan lahayd Maxamuud Axmed Nuur Tarsan aad ayaad mahadsantahay aad baad mahadsantahay.